Salaan sare dhammaantiin magacaygu waa Liibaan Cali Xirsi ku soo dhowaada taxanahan gaaban oo ku saabsan taariikhda qoraalka af Soomaaliga. Qaybtii afraad waxaan uga soo hadalnay habkii af Soomaaliga iyo Farlaatiinka ay iskula soo jaanqaadeen dhammaadkii qarnigii 19aad ilaa iyo bilowgii qarnigii 20aad. Qaybteennan shanaad waxaan uga hadli doonnaa sidii ay ku sii socotay in af Soomaaliga loo adeegsado alifbaada Laatiinka gaar ahaan wixii ka dambeeyey sanadku markuu ahaa 1950kii. Aqoonyahan cilmi afeed oo magaciisu yahay Morgan Nielsen oo waqtigan la joogo ka howlgala jaamacadda Gothenburg oo ku taala caasimadda labaad ee waddanka Sweden ayaa wuxuu soo saaray qoraal magaciisu yahay A Few Things About Somali oo haddii af Soomaali loo rogana noqonaya dhowr arrimood oo af Soomaaliga ku saabsan. Morgan wuxuu qoraalkiisaas boggiisa 49aad uga hadlayaa qayb uu ciwaan uga dhigay The First Public Text in Somali oo af Soomaali ku noqonaysa qoraalkii ugu horreeyey oo af Soomaali lagu shaaciyo. Qoraalkaasina wuxuu u dhignaa sidaan soo socota. Ra'iisul wasaarihii ugu horreeyey ee Soomaaliya sanadihii 1949 ilaa iyo 1961dii Mudane Cabdulaahi Ciise Maxamuud wuxuu ahaa shakhsi u ololeeya in af Soomaaliga lagu qoro farta Laatiinka. Taariikhdu markay ahayd 2 bishii 3aad sanadkii 1957dii wargeys Aftaryaale ku soo bixi jiray oo magaciisa la oran jiray Corriere della Somalia ayaa waxaa lagu soo daabacay hal bog oo warar af Soomaali ahi ku qoran yihiin. Boggaas waxaa ciwaan looga dhigay wargeyska Soomaaliyeed. Aan haddaba boggan ka soo saarno keydka uu ku jiro oo isha yara marino wararkii maalintaas la qoray taasoo ay taariikhdeedu ku aadanayd 2 bishii 3aad 1957. Qodobadii ama ciwaanadii wararka ee maalintaas waxaa ka mid ahaa ku dhawaaqidda xorriyadda xeebta dahabka. Dowladda Soomaaliyeed waa looga yeeray. Waxaa uga yimid ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliyeed warqad yeerniin ah xagga ra'iisul wasaaraha xeebta dahabka Kwame Nkrumah oo uu leeyahay waxaan kuu dalbanayaa shirka laga dhigayo Accra 2 ilaa 10 Maarso oo ah dabaaldegga gaaritaanka xorriyadda xeebta dahabka oo yeelan doonta magaca Ghana. Waxay ii tahay wanaag dhab ah oo ii gooni ah haddii ay kuu suuroodo inaad shirka timaadid. Ra'iisul wasaare Mudane Cabdulaahi Ciise wuxuu ugu jawaabay sidaan: Dr. Kwame Nkrumah, ra'iisul wasaaraha xeebta dahabka, waan kaaga mahad celinayaa u yeeridda aad iigu yeertay inaan wax ka joogo shirka xorriyadda Ghana. Waanse ka xumahay inaanan imaan karin maadaama ay howlo badan dalka noo yaalaan sida socdaallo kala duwan oo lagu tagayo Talyaaniga iyo shirka dowladaha ururay. Saaxiibaday iyo aniguba waxaan jeclaysanay wanaagga uu dadweynaha Ghana ku helay hogaamintaada. Annagoo Afrikaan ah dhammaanteen wanaaggaasi wuxuu noo yahay limin weyn oo noo soo hoyatay. Waxaan aniga iyo saaxiibadayba idinka codsanaynaa inaad salaantaas naga guddoontaan. Wax walba oo wanaagsan baanan idinku ducaynaynaa. Waa hagaag marka laga reebo inay laba ra'iisul wasaare xoog ka dhaxeeya isweydaarsanayaan. Warkan dhalinyaradu waxay ka heli kartaa macluumaad taariikhi ah. Tusaale ahaan magacii hore ee waddanka Ghana loo aqoon jiray oo ahaa Gold Coast ama xeebta dahabka oo ah sida warka af Soomaaliga ah ku qoran, iyo sidoo kale dowladaha ururay oo maanta loo garan og yahay qaramada midoobay. Aan soo qaadanno sidoo kale war kale oo la xiriira arrimo bulsho oo tilmaamaya waxay Soomaalidu guud ahaan isu yihiin ama qaabkii ay Soomaalidu isaga warqabeen waqtigaas. Warkan ciwaankiisu halkaan idinka muuqdaa oo waa wiil cidlo laga helay oo cid yeeshay. Ayaan dhaweyd niman booliisyada ah oo duurka diinsoor maraya ayaa waxay maqleen lax yar.
markay fiiriyeen waxay arkeen cunug yar oo dhowaan dhashay oo meesha yaalla. waxay u maleeyeen inuu 2 beri meesha yaallay. haddaynaan arkin wuu dhiman lahaa. waxay u soo qayliyeen diinsoor. markaasaa waxaa raacay Professor Bunani. meeshii bay tageen oo wiilkii bay soo qaadeen. waxay u keeneen xaakinka magaalada Baydhabo oo isaguna markiisa dhaqso isbitaalka ugu diray. waxaa la yidhi gabdhaha isbitaalka ka shaqeeya qofka ugu naxariis badan ha loo dhiibo. waxaa qaadatay Cadday Cumar oo ku dadaashay. wanaagga ay fashay waan ku mahadinaynaa. ardaydii Buulo Barde markay maqleen in cunug cidlo laga helay waxay suubiyeen wax wanaagsan. waxay ururiyeen 108 lacagta Soomaalida ah. waxay u soo direen xafiiska wargeyskan. qasadkeedu wuxuu ahaa cunugaas kaalmadiisa. wiilkii dhibkaas arkay wuxuu helay hooyo Ilaahay siiyey iyo walaalo kaalmeeyey. maadaama xilligaas jireen aragtiyooyin aad isugu diidan farta af Soomaaliga loo dooraayo ama alifbaada af Soomaaliga lagu qori doono, waxaa dhacday in boggaas wargeyska Soomaaliyeed magaciisu ahaa laga saaro joornaalkii lagu soo daabacay markaas oo loo yaqaanay Corriere della Somalia. Morgan Nilsson oo qoraalkiisa arrinkan uga sii hadlayana wuxuu u dhigay sidaan soo socota. dhacdadan waxaa ka dhashay inuu Shiro Jaamac sii kordhiyo waxqabadkiisii uu ku taageerayay farta Laatiinka. Shir wuxuu farta Laatiinka u barbardhigay tusaale ahaan korontada magaalada ku jirta, isagoo sheegay in far Laatiinka la diidan yahay iyo korontada lala dhacsan yahay uu labaduba gumaystuhu inoo keenay. sidoo kale Shir wuxuu sheegay in Turkiga oo ah waddan weyn oo Muslim ah luqadda looga hadlo lagu qoro farta Laatiinka wax dhib lehna aanan lagala kulmin. Shir wuxuu sanadkii 1960kii soo bandhigay alifba Laatiin ah oo aan wax badan ka duwanayn tan maanta qorista af Soomaaliga loo adeegsado. waa hagaag saaxiibayaal, qaybtayni shanaad maanta intaas ayay ku eg tahay. qaybtii 6aad ee soo socota waxaan ku eegi doonaa magacaabistii guddigii koowaad ee af Soomaaliga iyo howlihii loo xilsaaray. la socod wanaagsan, mahadsanidin dhammaantiin, soo nabad ahaada. nabaday.